kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka maanta ee Somali Cable oo idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada Muqdisho. barnaamijku waxaa idin socodsiinaya anigoo Abdicays Cabdullaahi Riyale. qodobada aad ku daawan doontaan amba aynu ku lafaguri doono waxaa qayb ka noqonaya wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta sheegtay kadib markii la soo afjaray qaraxii iyo weerarkii magaalada Muqdisho in ay gacanta ku soo dhigeen saddex kamid ah ragii weerarkaasi ka dambeeyay. waxaana sidoo kale maqli doontaan iyadoo qaar kamid ah mas'uuliyiin dawladda Soomaaliya ka tirsan oo culimaa u diin iyo siyaasiyiin isugu jira laga soo badbaadiyay goobta weerarka lagu qaaday ee hotelka. sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan arintaasi waxyaabihii ka dhashay oo qayb ka ahayd shir degdeg ah oo golaha wasiirada isugu yimideen, taasi oo keentay in taliyaashii hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka iyo waliba taliyaha ciidanka booliska kadib shirkii golaha wasiirada xilalka looga qaaday. maxay tahay sababta keentay xilka qaadistaasi ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. barnaamijka intaynu guda jirno sidoo kale waxaad ku daawan doontaan shirka madaxda qaranka ee maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho. haddaba shirkaasi oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay joogeen, ujeedooyinkii looga hadlay iyo waliba qaabkii shirkaasi u dhacay, maxay ahaayeen qodobadii ugu muhiimsanaa shirka. barnaamijka intaynu ku jirno ayaynu soo gudbin doonaa. barnaamijka sidoo kale waxaad ku daawan doontaan haddaba waa sidee xaaladda qaar kamid ah dadkii dhaawacyada ay soo gaareen ee weerarkii oo la gaayay qaar kamid ah cisbitaalada magaalada Muqdisho. dhaawacyada qaar oo xaaladooda aan u kuur garnay ayaad warbixin amuurtaasi ku saabsan ayaad maqli doontaan. barnaamijka qaybaha dambe falanqeyn ayaynu samayn doonaa, balse qodobada iyo kuwa kale ayaad goordhow daawan doontaan. haddaba aynu ku horeynay magaalada Muqdisho maanta waxaa si toos ah uga furmay shirka madaxda qaranka oo ay qayb ka ahaayeen madaxweynaha dawladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada. ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha gobolkan way joogeen. shirkaasi markii uu furmay waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Faarax Juxa, wuxuuna ka warbixiyay ujeedka shirka isagoo marka hore tacsi soo mariyay hawada. marka ugu horeysa waxaan jeclaa inaan tacsi kaliya laaba oo diro dadkii ku gooriyay qaraxii xara ka dhacay hotel Naasa Hablood kuwii ku dhaawacmana waxaan u baryaynaa Ilaahay inuu caafimaad degdeg ah siiyo. dhacdo aad u xun bay ahayd, taa marka si guud baan uga tacsiyeynaa. dad badan oo mas'uuliyiin oo qiimaha ku jiray, anaga dad nala shaqeeya ku jiray oo wasiirka arrimaha gudaha oo Madoobe Nuuno naqaali aha waa kamid aha, laakiin dad badan oo kala ku jira marka tacsiin wax tirayna. inta ka bacd waxaan rabaa inaan la wadaago in uu shirkii dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ay la sugayay ee madaxweynuhu uu ku marti qaaday 28 bishan Oktoobar inuu ka dhaco magaalada Muqdisho uu saaka bilowday. saaka ay wada quraacdeen, wada hadalkiina odayaashii ay ku jiraan, lagana wada hadlayo daamuraha waaweyn dalka yaallo ay kamid tahay arrinta amniga oo hadda emergency inoo ah dalka taala iyo waxyaalihii kale oo taagnaa. haddii alla idmo hadba wixii ka soo kordhana waa idin la soo socodsiin doonaa. marka intaas aan rabnaa inaan idin wadaagno inuu shirkiisa rasmi ah oo saaka uu bilowday. waa mahadsantihiin. shirkan ayaa wuxuu imaanayaa xilli maalmihii ugu dambeeyayba mugdi iyo madmadow uu ku dhex jiray madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda Soomaaliya. haddii aan milicsado dhanka qaraxii magaalada Muqdisho ka dhacay, waxaa wasaaradda amnigu ay ka hadashay khasaaraha qaraxaasi intii uu gaarsiisanaa, iyadoo sidoo kalena soo sheegtay in ay jiraan rag qaraxaasi ama weerarkaasi loo soo qabqabtay. maxamed ciise maxamuud ayaa inoo soo koobaya amuurta ku aadan weerarkaasi wasaaradda amniga say uga hadashay iyo dad ka tirsan culimaa u diin iyo madax dawladda ah oo goobta laga soo badbaadiyay. intaba maxamed ciise. Madoobe Nuuno Maxamed, wasiirkii arrimaha gudaha Koonfur Galbeed, xildhibaan hore Cabdinaasir Gaarane, taliyihii booliiska degmada Dayniile iyo dad kale oo shacab ah ayaa ku dhintay qaraxan oo galigii dambe shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. waa berigii saaka meydad kale oo ku hoos jiray dhismayaasha burbura ayaa laga soo saaray goobta, waxaana la arkay ilaa 6 ruux oo dhismayaasha hoostooda laga soo saaray. laamaha ammaanka waxay sheegeen inay socdaan baaritaanada ku aadan sida uu dhacay qaraxan. burbur hantiyadeed ayaa ka muuqday goobta qaraxa uu ka dhacay, waxaana socda dadaalo dib loogu soo celinayo bilicda goobta qaraxa uu ka dhacay ay lahayd. tirada dadka halkan ku dhintay waa ay sii kordhi karaan mar walba maadaama ay jiraan dad dhaawacyo halis ah ay soo gaareen. afayeenka laamaha amniga Cabdicasiis Cali Xildhibaan waxa uu sheegay in 5 ruux ay weerarka ku soo qaatay hotelka Naasa Hablood 2 ee magaalada Muqdisho. weerarka halkan ka dhacay waxa soo qaaday koox ka kooban 5 kooxdaas
saddex ka mid ah waxay ku jiraan gacanta ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya laba ka mid ahna sida aad arkayseen waxay meedkoodu yaalaan goobtii ay dagaalka ka galeen weli waxaa socda baaritaanada lagu ogaanayo khasaaraha guud ahaantii iyo nafba oo ay ka dhashay weerarkan ka dhacay dhinaca kale culimaadudiin dad rayid ah iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa laga badbaadiyay weerarka qaraxa ku bilowday ee ka dhacay hoteelka Naasa Hablood laba ee magaalada Muqdisho Sheekh Cali Wajiis waxa uu ka mid yahay mas'uuliyiinta halkaas laga soo badbaadiyay waxa uu sharaxaad dheeraad ah ka bixinayaa muddadii halkaasi weerarka uu ka soconayay iyo waxyaabihii goobjooga u ahaa maadaama markii dambe laga soo badbaadiyay waxaan rabaa kaliya anigu laba eray inaan iraado ereyga koobaad waxa waaye maadaama aan xalal la noolay azmadii ka dhacday hoteelkaas dhacday oo qofkii ugu dambeeyay meesha ka soo baxay aan ahay laga soo saaray 8 saacadood oo azma ah aan ku dhex jiray waxyaabihii aan arkay ama aan qiimeeyay oo aan al-shabaab iyo argagixisada wixii aan ka akhriyay iyo wixii noo muuqday oo dadku aan ku arkayno maalin kasta inay sameeyaan iyo wixii aan kutubta ka akhrinayo aqoonidooda ku tacalluqan ka hadli jiraan laakiin xalay waxaan la noolaa ficilkooda iyo toos ah oo mubaashir ah waxaan nasiib darro ah dad dhalinyaro ah wasaragna dhalinyarada anigoo arkay dad dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo islaam sheeganaya oo u soo galay hotel dad aaminiin ah oo nabad qaba oo rag iyo dumar iyo caruur iyo cid walba leh oo abriye ah oo aan wax dambiye lahayn inay baabi'iyaan oo ay laayaan u soo galay taasaan horta indhaha soo saaray waxa kale oo duruusta aan soo arkay kamid ah in qofku ajalkiisa u dhimanayo hadda Sheekh Nuur iyo walaashan Batola iyo Sahra waxay nagu geesinimo geliyeen in cabsida iyo qorshe xumada iyo go'aan xumada inta meel la iska dhigo dadkan cadowga ah oo aan qofna reebayn in la iska xoreeyo dawladuna ay arrinta hogaamiso shacabkuna ay garab istaagaan arrintaas iyada marka duruusta xal aan ka faa'iideystay waxa kamid ah nimankan qofkii Ilaahay dila umay dilayaan khudbadii jimcihii soo dhaaf khudbad jimcadan akhriya iyagan ka hadlaayay shalay subaxi oo maalintii ugu dambeysay ahayd hoteelka oo nabad looga soo kacayna salaada subax markaan jamaacada dushay iyagan ka hadlaayay marka qofka adduunka ugu nacab yihiin waxaan waleynaa maanta Sheekh Nuur Baaruudi aniga qof ayna ganacmi ma jirto labadeena darbigi qolkii aan ku jirnay darbigiisa noo soo istaageen haddana ma awoodin inay dilaan laanahu dilka xaq Ilaahay ka yimaada marka waxaan ilaahay marka qof kasta oo Soomaali ah cabsida al-shabaab meel iska dhigto ha ogaato in ajalkeedu u dhimanayso taasna waa dirsi runtii aan soo taabtay oo aad u muhiim ah tan saddexaad haddii dadka qaarkood islahaayeen al-shabaab diin qaloocan xataa Allah ka dhigay waa u qaloocanta diintooda diin sax ma ahan ayay u dhimanayaan waxaan soo aragnay cunuga yaro 6 jirka ama 5 jirka ah ee ay dileen iyo islaanta anay qolkii aan deganaa gabar Soomaaliyeed oo nin odaya oo casiis ah soo ziyaaratay oo ay dileen wasiir madaba nuuno u timid caruur yar siday ay caruurtina horteeda ku dileen odagii ay soo ziyaaratay ee qiimaha badan horteeda ku dileen gabadhi waa soo carartay qolkii ku deganaa anigu aan deganaa aan ka baxay markaas ka hor daqiiqado ay soo gashay qolkii ku dhex dileen marka yani inaysan marka arxam lahayn oo aysan cidna dhaafayn oo maanta yani Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam hatta mujaahidiintii gaalada la jihaadaysa muslimiinta ee wuxuu kula dardaarmay la taqtulu nisaan wala al-atfal wala ashab as-sawami' dadka kaniisadaha isaga cibaadeysanaayo dagaalba ku jirin iyo haweenka iyo dadka duqeyda ah iyo caruurta faraha ka qaad weeyay hadda dadka la dhaafay waa gaal ugu oo waliba wiilashoodii kula dagaalamayaan adiga oo gabdhaha haweenkaas ragooda ay ku dilayaan ay gaal yihiin haddana la taaban maayo caruurta marka inaysan marka diinta sheeganay shaqo ku lahayn taas horta daliil idana darsi weyn oo Soomaali ka baran karta waay darsiga afraad wuxuu yahay in aysan inay fulayaal yihiin maxaa yeelay nin markuu dagaalamay ee laga adkaada isagu isdilaaya oo gacantiisa isku dilaaya oo balaayo ku rakiban qabac waan fiirsanaynay meeshaan joognay xalay ilaa ay ka dhamaatay nagu dhamaad dulsheen ku dhamaatay waxbay turtuurayaan bambooyinay turtuurayaan marka ugu dambaysa runtii ayaga ayaa is dhamaynaya haddana marka dambe gacantiisa isku dilaa darsiga afraad ama shanaad oo ka faa'iidina waxa kamid ah geesinimada dhalinyarada Soomaaliyeed ciidamada ah ciidamada Soomaaliyeed waa dad diyaarsan oo aad active u ah xalay anigu waa fiirsanayay barnaamijka mar shabaab iyo anaga isku meesha isla joogna kaliya ciidanku waa ka maqnaayeen gurmadii ku yimideen muddan isla nooleen 2 saacadood ku dhadhow 2 saacadood ka bacdi ay 4 gees uga soo dhaceen uga soo daateen ciidamadii markaas ay iyagoon u naxayn ay intay galeen meesha
oo weliba qaybta ugu nuglaayeen oo qaybta dambe anigoo aan ku jiray jarajaro soo saarteen oo iyagu isku soo dul fuuleen oo si aad u tababaran waan fiirsanayeen gudaha u soo galeen ayay dabxir hoteelka dusha iyo hoos uga sameeyeen markaasay dad aad u muhiim ah oo qiimo badan ay ka soo saareen oo markaa weli noolaayo naf ay ku jirtay dad badanna waa dileen oo meydkii way arkeen wixii qofkii dhimatay soo noqon mayso laakiin intii ay soo saari kareen ay soo badbaadiyeen marka walaalayaal marka taana waxay tusinaysaa ciidamo inaan haysano laakiin hogaankii la rabay inuu ciidankaas Soomaalinimo inta la isu kaashado iyadoo far kaliya leeyahay in la dhaqaajiyo iyo shacabkii la rabaa inay caanaha iyo biyaha iyo timirta iyo ka daba qaadaan raashinka oo ay niyada u dhisaan haddii lagu xoojiyo dhalinyaradaas waa dhalinyaro geesiyaal ah oo aad u qiimo badan oo dalkan xoreyn karta shaabna ka adag Sheekh Bashiir Ahmed Salaad oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa madasha oo isaga oo ka hadlay waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inuu u midoobaan weerarada ka dhanka al-shabaab ee ka dhacaya gudaha dalka Soomaaliya walaalayaal waxaan maanta dhacayaa waxa dhici jiray weeye taariikhda muslimiinta ee taariikhda adduunka laakiin waa laga bixi jiray waxa looga bixi jiray waxay ahayd midnimo umadeed bay ahaan jirtay dawlad iyo shacab isku duuban bay ahaan jirtay annaga dhibkan haysta waxa weeye waa dagaalka oo hal meel ka socda waa dagaalka oo hal dhan ka socda weeye dagaalku hal dhan buu ka socdaa Soomaaliya dagaal ma gelin dawladdu wali dagaal ma gelin shacabku wali dagaal ma gelin dagaalkan hal dhan buu ka socdaa saanu aaminsanahay ummaddan fakar bay leedahay faham bay leedahay cudud bay leedahay ciidan bay leedahay laakiin dadka ku shaqayn lahaa oo waajibkooda fahamsiin lahaa ayay la'yihiin waxaan u baahannahay inaan fahamno waxaanoo kale haddii waddadii lagu daaweyn jiray haddaan lagu daaweynin ma daaweysmahayaan saxaabadii nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaana ku dhaceen ayagoo saxaabadii nabiga ah oo fadli badan oo ilaahi subxana wa tacaala agtiisa karaamo ku leh gacantoodii iskaga celiyeen hubkay qaateen waana iska qabteen wayna ka adkaadeen saasay ahaan jirtay marka annaga marka maanta waxaan haysta waxaa weeye dagaalkii hal dhan ka socda weeye dad abaabulan dad afkaar aaminsan dad isku duuban dad tashan haya ayaa meel noo fadhiya Ra'iisul Wasaarihii hore ee dawladii ku meel gaarka ahayd Cali Maxamed Geedi ayaa isagana warbaahinta isaga oo kula hadlayay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay inaysan wanaagsaneyn mar walba in qof muhiim ah oo shacabka Soomaaliyeed uu ka geeriyoodo isla markaana tacsiil la diro dawladda federaalka maamul goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay u midoobaan sugitaanka ammaanka guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaan u tacsiyeynaynaa dhammaan muslimiinta Soomaalida ee ku geeriyootay weerarkii shalay galab ka dhacay hoteelka Naasablo 2 ee magaalada Muqdisho intii ku geeriyootay Allaha jannadii ka waraabiyo intii ku dhaawacantayna Allaha caafiyo intii alla ka badbaadiyana umrigooda Allaha dheereeyo waxaan filayaa munaasabadan inay tahay in xanuunkaas looga hadlayay in Sheekh Cali Wajiiso alla ka badbaadiyo culimadiisii iyo asxaabtiisii iyo heladiisiiba ay u duceynayaan Ilaahay badbaadshay inay tahay iyo baroordiiq dhammaan loo sameeyay intii Soomaalida ahayd wax ku waxyeelowda weerarkaas sida aad la socotaan Soomaaliyay maalin walba inaan qof qaali ah aasno tacsi u dirno ilmihii iyo eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo qarankii waxaan u maleynayaa ma xuma laakiin naguma filno Ilaahay wuxuu naga dhigay dad awood leh oo aqoon leh oo qaran ah oo ciidan leh oo shacbi dawladnimo raba leh intaa haddii intaa isku darno aan cadowga dalka ka qaban weyno waxaan noqonaynaa dadaan mas'uuliyadooda ka soo bixin oo taariikhdu qori doonto waxaan rajaynaynaa inaan isugu baaqno isugu sheegno inaan dalka ka xoreyno cadowga ummadeena baabi'inaya qof uu dhaafaya ma laha dawladdu uu la diriirsanyahay ma aha shacbigii maatadii berimageydidii maalin walba leynayaan arrintaas inay dadka wada saameyso in loo wada kaco ayaan ku baaqaynaa tirada dhimashada iminka waxaa lagu qiyaasay inay gaarayso 27 ruux waxaa jira dad kale oo dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen waxaa warbixintaasi inoo eegaya Cabdicasiis Riyali oo booqday isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo aan booqday maanta waxaa jiifay dhaawacyo hor leh kuwaas oo gaarayay ku dhawaad 20 waxaanay ahaayeen dhaawacyadii ugu dambeeyay ee qaraxii ka dhacay agagaarka hotel Naasablo 2 ee magaalada Muqdisho haddaba si aan wax badan uga weydiino
agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa nooga warbixinaya bukaanadii soo gaaray iyo qaabka ay u tacaalayaan. dhaawacyadii qarax shalay anaga waxaan soo gaartay 5 meeda iyo 19 oo maxay dhaawaca oo 3 ay dhaawacooda fududaayeen iyo 16 aan sixin adiga 16 kaasi aan sixinay hal bukaana aad iyo aad very serious oo noogu daran oo neeftii oxygen aan ku xirnay neeftu waa dib u haysaa hadda asaan la tacaalumayna oo aan ka shaqeynayna maartay inteena kale bukaanada kale waa noo fiican yihiin. intaasi kadib si aan marxaladda u sii ogaado waxaan u kuurgalay xaaladda qaar ka mid ah dhaawacyada yaala cisbitaalka oo qaarkood ay suura gashay inay ila hadlaan iyagoo xanuuna dareemayay. saaxiibayaal waxaan rabaa aan ka codsanayaa dhammaan muslimiinta iyo saxaafadda waxa weeyaan wada sidaan oo alla kulli waad aragtaan sadar muuqda macnaha su'aal waa ka dhig nabar kalena way ugu yeelaan inta hadda macnaha u jeedaanna way ugu taalaa waa jam cidna ima joogto magaalada inaan marka iga caawisaan baan rabaa haday tahay xag daawo iyo haday tahay xag baanba labadaba inaan iga caawisaan baan doonayaa. marka qarax ku dhacay maxaa qabanaysa? qaayda banada fadhi haye meesha shaay ku adaa haye marka qaraxi meesha uu lacay laba baawras ku dhacday shila u maleynay markii dambe anoo ku murmayna marka qaraxi nagu dhacay wixii dhacay oo ujeedo marka haye laba baawro man halilo kas man baraada oo midow baqali labadaas ku dhacay haye markaas marka ogaali ugu dambeeyay goobtani waa saalada qaliinka oo dad fara badan oo ehelaa ay dhooban yihiin. muhiimadda ugu ballaaran waa inay ogaadaan hadallada laga soo sheegayo bukaanada iyaga ehelka la ah. kani waa mid ka mid ah dadka ku dhaqan gudaha isbitaalka Madiina wuxuu ila wadaagayaa dad isagu uu sheegay inay uga sheekeeyeen in ay isbitaalka ka baadigoobayaan meydadka eheladooda. waxaan arkay oo teer iyo shalay iyo xalay arkahayay dad Soomaaliyeed oo tiro badan oo aan yarayn oo dumar iyo ragba leh oo raadinaya meydad badan oo ay tiraaya xoog lehayso ku dhibtooday dhibaatadaasina waa wada gaartay annaga dhan bayna saameysay oo Soomaaliya saameysay waxaan ka xumahay ammaanka iyo fircoonida nala ka rabay haddaanu nahay Soomaali inaanu ka gaabin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. wasiirka wasaaradda caafimaadka Fawsiye Abikar Nuur ayaa waxay sheegtay in haddii ay jiraan dad qaba dhaawacyo daran dibadda loo qaadi doono si loogu soo baxnaaniyo. أنا سو أركنا dhaawaca intooda badan sidoo sheegay halkiisa aad ugu daran oo hadda ay takhaatiir badan oo ICRC la shaqeysa Dr. Maxamed Yuusuf ay ka talinayeen iyo isaga tiim ahaan sidii loo qali lahaa. waxaan rajaynaynaa Ilaahu inuu caafiyo isaga intii kale ku dhaawactay inta dhimata Ilaahay u naxariisto Ilaahay sabar ha naga siiyo waa muddo 2 usbuuc gudaheeda shilkii kale ugu weynaayo dhaca naf Soomaali ku baxda dhaawac badan ka yimid marka waxaan rabaa mar labaad inaan u mahad celiyo Dr. Maxamed Yuusuf isagoo waajibkiisa ay tahay oo takhaatiirta ugu fiican oo qalliinka wadanka uu ka mid yahay haddana sidoo habeen iimaani ugu taagan yahay oo soo ugu daalino tale iyo mar walba noogu yimaado marka waa mahadsan yahay Ilaahay dhaawac ha ka kiciyo. weerarka iyo qaraxa iswata ee magaalada Muqdisho wuxuu ku soo aadayaa iyadoo 14 bishan mid ka lamid ah isla magaalada Muqdisho sabab uu ka dhacay oo dad fara badan ay ku waayeen taasi oo keenaysay in mas'uuliyadda weerarkaasi dad fara badan ay sheegaan dawladda inuu xil ka saarnaa. dawladda Soomaaliya arintaasi jawaab celin ay ka sameysay oo madaxweynaha dawladda ayaa safar dibadda ku baxay waxaana dadaal lagu jiray in weerar markaasi ama dagaal lala galo al-shabaab. haddii aynu ka soo gudubno golaha wasiirada shir degdeg ah ay maanta ka yeesheen waxayna shirkoodii sheegeen in wasiirka amniga uu soo jeediyay in xilalka laga qaado taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo waliba sidoo kale taliyihii ciidanka booliiska labadaasi oo howsha sida la sheegay ay qusaysay. wasiirka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yirisow ayaana ka warbixinayay shirka golaha wasiirada iyo qaabkii uu dhacay maanta. maanta oo bisha 19 Oktoobar 2017 shir aan caadi ahayn oo degdeg ah oo golaha wasiiradu ee xukuumadda dawladda federaalka yeesheen oo shir gudoominaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa looga hadlay arrimaha amniga
gaar ahaan qaraxii shalay ee kooxaha argixisadu ka fuliyeen hotel Nasablo 2 ee magaalada Muqdisho. ugu horeyntii wasiirka amniga gudaha mudane maxamed abuukar islow ducaale ayaa golaha wasiirada siiyey warbixin la xiriirta dhacdadii masiibada qaran ee 14 Oktoobar iyo tii shalay 28 Oktoobar ee kooxaha argixisadu geysteen. golaha wasiirada ayaa ugu horeyntii ka tacsiyeeyey dhammaan dadkii ku geeriyooday qaraxii shalay ee hotel Nasablo 2 una rajeeyay dadka dhaawaca in Ilaahay bogsiiyo. golaha ayaa si kulul u cambaareeyay falkaas isaga argixisada oo mar walba ay beegsanayaan dad aan waxba galabsan. wasiirka amniga ayaa warbixintii 14 Oktoobar maalintii masiibada qaran waxa uu sheegay in ilaa 5 qof ay hay'adaha amnigu u hayaan oo ka mid yahay darawalkii waday gaariga nooha, sidoo kale 2 qof oo damiin ka ahaa gaarigii qarxay oo iyagana gacanta dawladda ku jira, iyo shakhsi isagana isu soo dhiibay hay'adaha amniga oo isagana gacanta ku jira oo waxaana socda waraysiyo la yeelanayo. wasiirka ayaa sidoo kale ka warbixiyay dhacdadii shalay ee hotel Nasablo 2 oo uu sheegay in ilaa 27 qof ay ku geeriyoodeen, dad badan oo dhaawacana ay jireen, dad badan oo hoteelka ku xanibnaana ay ciidamada u gurmadeen geesiyaasha ah soona badbaadiyeen. wasiirka ayaa sheegay in 5 maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay falkaas fuliyeen, 2 ka mid ahna midna gaarigii ku qarxay, mid kalena afaafka hoteelka ku qarxay, halka 3dii kale ee dagaalamaysay hoteelka gudaha u galayna ugu dambeyntii gacanta ay ku soo dhigeen ciidamada geesiyaasha, haddana ay ku socdaan waraysiyo lala yeelanayo. dood dheer ayay golaha wasiirada ka yeesheen arrimaha amniga iyo nabadeynta, soona jeediyey talooyin muhiim ah oo lagu horumarinayo amniga dalka iyadoo cashar laga baranayo dhacdooyinka hore u dhacay. golaha wasiiradu waxay istuseen in loo baahan yahay isla xisaabtan dhab ah inuu jiro. intaas kadib wasiirka amniga ayaa golaha wasiiradu wuxuu ka codsaday si isla xisaabtan u dhaco in xilalka laga qaado taliyaha booliiska Soomaaliyeed iyo agaasimaha hay'adda nabad sugidda qaranka si loo helo isla xisaabtan dhab ah. golaha wasiirada ayaa dood dheer ka yeeshay tala soo jeedintaas wasiirka, ugu dambeyntiina cod aqlabiyad leh u qaaday in xilalka laga qaado taliyaha booliiska Soomaaliyeed Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid iyo agaasimaha nabad sugidda qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe. aad iyo aad u mahadsantihiin. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxa uu maanta ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayay 94 sano guuradii ka soo wareegatay markii dowladda Turkiga ay jamhuuriyad noqotay. ra-iisul wasaaruhu wuxuu soo hadal qaaday heshiis dowladda Soomaaliya iyo Turkigu ay wada galeen, isagoo balbalaarin doona heshiisyadaasi waxyaabaha ay ku saabsan yihiin iyo ujeedooyinka dowladda Soomaaliya ay u leeyihiin. Xasan Cali Kheyre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa arrimahaasi ka hadlaya. waxaan rabaa markaa annagoo u hambalyeynayna intaanan halkan isugu timid dowladda aan ugu dhownahay saaxiibka ula nahay inaan shacabka Soomaaliyeed iyo dadka halkan joogaba u sheego in safarkii aniga iyo wafdigeygii aan ku tagnay hadda inaan ku soo heshiinay inaan sii adkayno xiriirka labada dal, inaan bilaawno inaan ka wada shaqayno arrimaha kobcinta dhaqaalaha, in sanadka soo socda haddii ilaa yaraado aan bilaawno golo dhaqaale oo ka kala imaanaya ganacsatada labada wadan iyo golaha wasiirada labada wadan si loo kobciyo dhaqaalaha dalkeena iyo dalkoodaba, inaan u helno suuq badeecooyinka halkan aan ka soo saarno oo loogu iibgeeyo dalka Turkiga. waxaan ku heshiinay inay gacan weyn ka qaataan inay amniga dalka wax nagala qabtaan oo ay sidaasna mar dhow bilaabi doonaan. waxaan ku heshiinay in labada wadan la isu sii furo lana kordhiyo fursadda ardayda Soomaaliyeed ay u hesho inay dalka Turkiga wax ku soo bartaan. sidaas daraaddeed waxaa muuqata maanta meeshan isugu nimid xiriirka labada wadan aan wada leenahay. waxaan idinkaga sidaa markaa fariintaan xambaarsanaa markii aan safarka ka soo noqday. waxaan ku heshiinay inaan yeelano xiriir dheer oo ka qoto dheer kan hadda aan leenahay oo taabanaya meel walba. sidaas daraaddeed ayaan aada ugu faraxsanahay maanta inaan halkan imid oo aan la qaybsanno maalintan farxaddooda ah dowladdaas aan walaalaha la nahay ee Turkiga. waxaana safiirka iyo dadka la shaqeeya kulligood u sheegayaa
in xukuumadda iyo dowladda soomaaliya dhammaan qeybaheeda oo kala duwan ay diyaar u tahay inaan la shaqayno waxna la qabsanno sidoo kale ma ilaabi doono gurmadkii ay noo soo gurbadeen laga soo bilaabo 2011kii markii ugu horreysay uu yimid madaxweynahooda halkan dhaawacii nagu dhacay maalintii 14 Oktoobarna ma ilaabayno waxay ahaayeen dowladdii ugu horreysay ee gacanna siisa walaaltinimadaas ku dhisan qalbiga oo annaga iyo dowladda naga dhaxeeya ayaan kula shaqayn doonaa waana ku dhiirigelinayaa shacabka Soomaaliyeed inaad idinkuna caawisaan waxaan idin sheegayaa markii ay tageen la geeyey dadkii dhaawacmay halkan laga qaaday Turkiga madaxweynaha Turkigu saacad u wareysanayo sida xaalkoodu yahay wasiirkooda caafimaadka iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenkooda ayaa loo xil saaray inay soo dhaweeyaan hadda markii aan tegey isbitaalladii aan tegey madax Turkiya ayaa kor taagneed dadkii Soomaaliyeed oo meesha ku xanuunsanaa oo lagu dabiibayo waxay noo muujiyaan walaaltinimo dhab ah waxaan noo muujin doonaa walaaltinimo dhab ah waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh weli telefishinka Somali Cable ayaa naga daawanaysaan waxaynu bartan ka jirnaa barnaamijka maanta iyo Somali Cable iminkana Baydhabo magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in aas qaran halkaasi loogu sameeyay Allah u raxmadee Madoobe Nuno Maxamed oo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha Koonfur Galbeed wuxuu ku jiray dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay hotelka Naasaha Blood 2 oo weerarka watay Madoobe Nuno waxaa midkiisa loo qaaday Allah u raxmadee magaalada Baydhabo si halkaasi loogu aaso maanta aaskiisa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen xildhibaanada dawladda ah madaxda maamulka Koonfur Galbeed iyo xubno kale oo eheladiisa ka mid ah haddaba waxaa inoo soo diray war arrimahaasi ku aadan Maxamed Cabdiraxmaan wariyaha telefishinka Somali Cable ee magaalada Baydhabo mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa aas qaran maanta u sameeyay Allah u naxariistay wasiirkii arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Madoobe Nuno Maxamed oo shalayto gelinkii dambe ku geeriyooday weerarkii lagu qaaday hotel Naasaha Blood 2 oo ku yaala magaalada Muqdisho meedka wasiirka oo diyaarad loogu soo qaaday magaalada Muqdisho markii la keenay magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka qayb qaatay aasitaankiisa mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya aaska kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka tacsiyay geerida naxdinta leh ee ku timid wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Madoobe Nuno Maxamed inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun walaa ilaahay rafadii dadkii u horreeyay ereen runtii geerida saaxiibkay saameyn gaar ah iyo lataan dadka mid yeeshaan xukuumadda ilaa iyo mid qaraha ka dhiyay wal ku yar 400 mitir injari kuma ikoos ahayd mid qaraha ka dhii siyaasa amal shal tabni hadalladii una ka ballagnay dadkan idalkan se wadanka gobolka haay horteeyaala taasida way la qabay saaxiibadii oo horeey ilaahay wali ku codsadaan inay walaalkan mayla raaya jannatul firdaws ku waraabi ilaahay intii lamid ay maalintan dhamatay mayla raaya jannatul firdaws ku waraabi ehelka sabar alla ka arsaag insha Allah wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya mudane xildhibaan Ibraahim Yaro Isxaaq ayaa isna ka qayb galay aaska qaran ee loo sameeyay wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed asigoona ka tacsiyay geerida wasiirka kale muslimiin ee Soomaali ee la ka xasuuqay qaraxii Haaji Madoobe ka dhamadayna Allah naxariis dhamaantiyo dhamaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii eheladahay marxuum Madoobe Nuno ehelshay iyo dhamaan ehelada marxuumiinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigooda qabooji sabir iimaan Allaahisi dhamaan ummadda Soomaaliyeed sabir Allaahisi reer Koonfur Galbeed dhammaan dawladda madaxdeeda iyo shacabka
ilaahay weynaha waxayda inta asiyeen sabir iimaan alihi nasiib dhamaanteen qaybaha dambe ee barnaamijka maanta ay Somali Cable ay soo gaarnay haddaba waxaa stuudiyaha igula sugan ex xildhibaan Hilowle Aadan Maxamuud marka hore ku soo dhaw Somali Cable. Assalaamu calaykum. Adhow. xildhibaane maanta golaha wasiirada waxay yeesheen kulan degdeg ah arrintaas aynu falanqeynaynaa marka ay kulankaas degdeg ah waxaa la sheegay in xilka loo qaado taliyihii nabadgudda iyo taliyihii ciidanka booliska waxaynu timid xilli qaraxyo toddobaadyada magaalada muqdisho ka dhaceen oo kii ugu dambeeyay naasaha blootu qaraxi ka horreeyay oo ka dhacay 14 Oktoobar Soobe dhammaantood waxaa la sheegay in uu jiray gaab dhanka amniga ah wasiirka amniga ayaa soo jeediyay arrintaas la sheegay kadibna waxaa lagu dhawaaqay in xilalkii laga qaaday ma tahay arrin mudnayd labadaas qarax in loo xiriiriyo xilka qaadistooda bismillah alxamdulillahi rabbil caalamiin والصلاة والسلام على رسول هذا وما سنتين أنا هذا كلا سوق قال برنامج كان أنا وحيلتها هي أرنت ما أنت حلك اللغة قاضي مسؤولين تاس يقرح يده يني كليهين سيدان مارت عقليا أنا قايلتها هي نك حلك مركل لو دي بيو والله الصوت دورته والله قصور نحو شيء ضدكي إنه بوسيشن كاس بوحين كرو كان بيحكي كرو وحيلتها هي أمام مسؤولية ده وعدت كفريسة قف كمرك لقى قاعدة هي حلكة وإن سبب حلكة لقى قاعدة ولي ماذا صح حل جود الشلان إنه يجري الدم بإنه قلي وإن لصاق هذا يعرض قف كمرك هوري مركا هدي الدم بهوري وجري أصوص سعودي وحلكة قاعدة استجوان كي هرو لقى جاري لها كلي أودنا ولا قاعدة كرا حلكة لكن قرع حال دعي صوبنا درادو كدعي إن للحريري مسؤولين دن قرنك شقوا هاي سحلك هاللوجا قاضو تاس أنا وحيلتها هاي إن أرين المسؤولية ده حتى حاجة وحود ما يسأني تهاي لكن تريها أنا بتسكت هراي وحوش شيء أم أقول لي دولة أمريكا كإنجليز كدمر كعند سي دولة سومالي نوي إني غرامة من دول شيء ناس حاجة هلو ذاكين حيوان نوع سكرة تاس كل هذا مسؤولين كتير ما يتن تليها أنا بسجود هراي وش شيء نرتو على ربعنا كمسؤول ك حاليبان مر أوديال وحمل أرينا كدودين ضد سياسينا يا وحن لهين ورقرحي صوب وأفر قفو أفر بقول قفو سومالي كل يوم هي كي حالي وأيضا بقول إن كبضن لقى يابني كل يوم ضد كمان أنت مسؤولين الشيعان هي ولي كراست كفرية من اللي قال هي قف ضمير له أو يرى ورانو ماشان وحن كد عيان ومضي ذي مسؤوليات وما هينكر قف يرها من اللي قال هي الدولة دنا ولا كل إلا عوص marka taliyaha nabadgudda hadii xaalad adag uu arkay oo kala kulmay ama beesha caalamka kala kulmay ama dawladda kala kulmay mar hore aan rabay inuu istiqlaaladkeenu yiraahdo aniga waxaan kuma shaqeyn karo laakiin maanta xilka qaadista hadii ay qaraxyada ku saabsan tahay aniga ma aaminsani xilkaas ama xilka qaadistaas inuu waajib yahay hadii qaraxyada ku saabsan yihiin haday dambiyo hore u galeen oo ama dambigii hore ay soobe ayaga ay raad ku yeesheen أما راد سوق قال أي وحكة قبون واين كي حال لفتيس أيضا الله صعد إن أي وحكة قبطان أي وحكة قبون واين أما عرب لوجستيك كذي إذا ما دي لوط لما يستيرن وأي قال لقى ربينا لما يستيرن أما لوط لما يستيرن أي وجوات قدوم واين وحياله بدنا على قفير يعني كمرك حيلك لقى قاضي مرك وحيلتها هاي إن مناسب هاين إن للحريرية قرحية هي مسؤولية دي حيلك قاضي استنسكو حريري marka waxa la rabay ama ra'iisul wasaaruhu inuu iscasilo Iraaniga maanta waxba kama aqoon karo halkan maadaama dadkayga hormeedka uu yaal oo ku kala yaal oo saacad yaal ra'iisul wasaaruhu inuu iscasilo Iraaniga umadan madax uma noqon karo ama uu taliyaha nabadgudda iscasilo ama wasiirka amniga iscasilo yaa la rabay mar hore laakiin waxay la tahay aqliyan markaan aniga ka hadlo siyaasiyan inta ka garanayo anigu ma filayo in ay wada xiriirsan yihiin xilka qaadista iyo qaraxyada laakiin حل جود الشلعان أما الدنبيه هرو سوجري أو الربي إن ضد كان حل كهرو لوجا قاعدين ما أنت لا كلنتان يعني سلية أما أود هذا كهذا الله أمامك الدولة حقيقة دولة عندما هي اللي هاي قارب 1000 جروب اللي هذا وضما عن الصوماليين العكسية وهوستجان دولة ما كونترولشو مشار مصيصو إن قاركود وضما الإمارات وكله هوستجان وكل خيبسينين دولة عندما ذي أساسيين أو عندما ذي عمك لا إماملان سدي أمامك مركز السلة هاي وي كأنه وجه سكرتان والله هرتا مركات فيريسيد مدحضة دلكا أما عيدمد الصومالي مركات فيريسيد
waxaad moodaa dhinac beesha caalamka inayna Soomaaliya ugu talagelin ciidan inay yeelato oo ayada Soomaaliya ciidan Soomaaliya la yiraahdo inay yeelato ay caawiyaan oo dawladdu ku caawiyaan kharashka ay bixin lahaayeen ciidanka iyo dawladdu loo marsiiyo maamulka markaa jira dhinacaas waa cid walba way ogtahay in beesha caalamka inay raalli ka yihiin Soomaaliya inay ciidan yeelato dhinaca kale mas'uuliyiinta qaranka u sareysa ama madaxweynaha ama prime ministerka markasta ka soo bilaw kuwii hore ilaa kuwan hadda jooga waxaa la rabay qorshe aan ahayn inay keenaan xoogaa ciidamada qaranka waxaad moodaa qaab NGO inuu ku dhex jiro mataal Djibouti kuway soo tababaraysaa Ethiopia kuway tababaray Uganda kuway tababaraysaa oo dibadaha lagu soo tababari jiray hadda waxaa la keenay in wadanka gudihiisa xariya laga oodo sida maxaa la yiraahdaa Imaaraadka ama Turkiga oo kale marka xariya la oodo kadib macallimiinteeni iyo saraakiisheeni iyo khibradda dadka u lahaa oo jooga qaranka Soomaaliya iyo ciidamada dadkii soo tababari jiray la yiraahdo annaga idin tababarayna dalka dhexdiisa la yiraahdo war haddii Soomaaliya ciidamo loo tababarayo ama kharash lagu bixinayo waxaa la rabaa ciidamada inay Soomaaliya tababarato adduunkan uu caawiyo oo lacagta ciidamada dawladda u marsiyo si ciidamadana mushaar ay ugu dhigtaan qalab loogu helo ciidankan uu ku noolaado waxa way askari baa lagu tababaray qori baa loo dhiibay qaar madaxa u xiran welina lama arag adduunka ma jiro nin ciidamada qaranka Soomaaliya oo shacabkiisa mas'uulka ah oo shacabka inuu waardiyo loogu talagalo oo indhaha xiran adiga iska qarina qaranka mas'uulka ah shacab aniga shacab mas'uuliga tahay maadaama aniga mas'uuliga tahay inaad iska ka qarisid yaa horta wax ku jiraan arrimaha la yaaban ilaa hadda weyn markaan waxa ila tahay dawladdu waxa laga rabaa inay ayadu la timaado qorshe ciidan xooga dalka Soomaaliyeed ama ciidanka qalabka sida Soomaaliya oo dawladdu maamusho xukunta caalamkana ay weydiisato inay taakuleeyaan ciidankaas macallimiintana dawladdu iyo ay la hatta banaanka ka keensato ay doonto laakiin ciidamada waa in hal ciidan oo dawladdu gacanta ku hayso laakiin kuwa la soo indhaha laga xiray alf group iyo kuwa kale oo qolo kale keensadaan mushaar la siiyo iyo kuwa kale oo aan iyagana meel kale lagu soo tababaran mushaar la siin waxaan qaran Soomaaliya ciidan uma noqonay siyaasiyiinta qaar waxay qabaan waxay leeyihiin magaalada Muqdisho waa magaalo kooban oo la xakameyn karo dhowr kun oo ciidan oo magaalada gaar u noqdo in la sameeyo say kula tahay horta meel walba horta magaaladan waa magaalo weyn oo ka duwan magaalooyinka kale ee Soomaaliya أنا أردت طلعها وحن سوي لها إن سكمل جارة عاصمة دولة اللوجة بدل هالكان والله سيب الأمان هان الله صح وجود الدولة اللوجة سببتها قبل هذا ذلك وادكتها الأكل مركز تكتيد كسماي أكل هذا مركز تكتيد جرو أكل مركز تكتيد بيدا أكل وحوي ماله وحجرة ضدك أي كوبي كران وجود الله قبان كرو وعيد سوق شيء عيدك بعد اللوجي magaaladan waxa weeye 27 sano ayaa shaydaan ku ilma dhalay ama wax aan la garanayn dad caloosho shaqaysiyaal baa jooga ajnabi baa jooga dad aan la garanayn baa jooga markaad sii fiiriso waxaad leedahay annaga ba gacanta noogu ma jirto markaan u soo noqdo ciidanka anigu waxaan dhihi lahaa waxaan oo dhan inta laga saaro ciidamada banaanka loo saaro ciidan 3000 5000 leeg anigu waxaan qabaa dawladdu inay inta calaamada gaar ah u samayso tababar gaar ah siiso loo qaybiyo degmooyinka gobolka waxa kale oo dhanna banaanka loo saaro ama xariyaha lagu xareeyo ama dhulka shabaab haystaan ha loo dagaalgeeyo laakiin ciidan kooban oo la soo xulay oo la isku dhafay oo ama gobolada ama maamul goboleeda laga keenay oo Soomaaliya u dhan yahay aan qabiil iyo qof ahayn oo qalabaysan oo tayadoodii iyo mushaarkoodii iyo raashinkoodii loo dhameystiray waayo askariga haddii bishii 25keeda ama 30keeda mushaar la siiyo ilaa ugu yaraan intuu rabo ha noqdo oo wax uu og yahay oo u dhinto oo caruurtiisa ay ku noolaanayso uu og yahay wuu difaaci karaa dalka laakiin askari aan mushaar qaadan marka tiraa difaac adigana aad guri gashid ma suurtagelayso markaan waxaan dhihi lahaa haddii ciidan kooban la helo waa difaaci karaan xamar ama nabad waa ka dhigi karaan laakiin hortaa furan wax la yiraahdo anigu waxaan qabaa xamar nabad loogama dhigi karo xildhibaan dawle waqtigan kulaalaya waxaad moodaa in aan ku sii siqayno xilliga barnaamijka loogu talagalay ma ka baxayno سؤال شو بدنا بس أقصينا وحدتها محو كجرا حالك مجالنا إنك أمانك حالك أمان كرت إلهي بهاي سيدان هذا أنكوس عنانا سفي عن ما سي إلهي أوجي هوي أنا مجالنا وحن إميد وأن حلبان كان نقد لابد يكون إلا لابد يكون كوي طبعا كي حلبان عنها مرة كب حي مرة سوق عليه ولا عمر ما سوق عليه إلا هذا نواجهه أو ولي بناك أو ما بحن ولي سيدا هذا يكون صعوبة ولينا ما صومرين سياسة دولة هذا جرتا ولي ما صومرين سياسة دي دولة دي هرا ما صومرين
waxaa weeye qofka bini aadanka waa inuu laba option la yimaada option dowladeed oo gacan adaga oo laga baqo iyo option shacab oo la xukumo waa inuu la yimaada laakiin xukuumaddii dowladdii iyo haddii shacabka isku milmaan mushkiladeeda ay leedahay waayo waxaad garanaysaa saraakiil badan baa laga qaaday xilalka hadda ka hor markii hadda isku shaandhayn ama xukuumadda la dhisayay kuwa kale haddana laga qaaday kii laga qaaday iyo kan maanta loo dhiibay waa isku koowey halkii bay wada joogaan nin walba ciidankiisi uu watay marka xilka laga qaaday gurigiisuu la aaday marka xilal la qaado iyo cid lagu bedelo iyo xal ma imaanayo aniga waxaan soo jeedin lahaa laba qorshe dowladdu inay ciyaarto mid ama waa in qorshe madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo baarlamaanka ay degaan oo la hela Soomaaliya meeshaan meel ka duwan oo qarannimada lagu dhisi karo in la helo in laga fikiro meel xamar ka duwan xamar waa caasimadda Soomaaliya waa centralkii waddanka waa wadnihii waa goobihii ganacsiga laakiin sida hadda ay ku socoto qarannimo Soomaaliya kuma sii jirayso waa in dowladda iyo baarlamaanka iyo xukuumadda madaxweynuhu ka fikiraan meeshaan meel aan ahayn oo ka fudud oo qarannimada lagu soo celin karay waa in la raadiyaa xalkaas weeye midda kale waxaan dhihi lahaa gobolka Banaadir haddii loo dhiibo nabad kama dhihi karo haddii taliya laga qaado taliya cusub loo dhiibana nabad kama dhihi karo aniga waxaan dhihi lahaa xukuumadda iyo madaxweynuhu waa inay la yimaadaan istaraatiijiyad ciidan gaar ah oo ciidamadan farada badan aan ahayn inay la yimaadaan oo caasimadda lagu xasilin karo bal almiine meelaha u dhow area hadda xalay madaxtooyada rideeda ilaa waaga ugu bari marka area waxaa jira mamnuuc ka ah oo hataa in yar oo ammaan haddii la helo marka taasaan dhihi lahaa midda kale waxaa weeye aan ku kordhin lahaa intaanan talada u gelin marka waxaan dhihi lahaa dowladdu waa inay istaraatiijiyad la timaado istaraatiijiya haddayna la iman ciidamada ay keenayaan ayna hubayn oo qalabkoodii ciidanka waxaa la yidhi anigu ma soo marin laakiin waxaa lagu yidhi ninka askariga waa in caloosha loo buuxiyaa qoriga loo buuxiyaa maxay ahayd ninka waa in la dhamaystiraa qofkii la dhamaystira ayaa marka difaac la gashan karaa marka ciidan inta halkaan laga qaaday 40 xabo rasaas wata la geeyay Biriiri iyo mid inta laga qaado Jowhar la geeyay iyo mid inta laga qaado kontaroolada inta la dhigay la yiri dowladda adaa difaacay mushaarna aan lahayn qarannimo Soomaaliya kuma soconayso ciidamada dowladda waa inay la timaadaa gacan adag waa inuu madaxweynuhu la yimaada waa inay maamul goboleedyada istaraatiijiyo waa inay la isticmaalaan sababtoo ah mataalo kale hadda waa la isu yimid khilaaf baana jira la yiri haddii maamul goboleedyada iyo dowladda ayna wada socon oo iskaashi dowladda iyo maamul goboleedyada ayna jirin dowladda xamar joogto ma socon karto waayo waxa ku hareeraysan maamul goboleed Jowhar ilaa 20 kilomitir 30 kilomitir baa loo joogaa aad ayuu mahadsan yahay xildhibaan Hilowle Aadan Maxamuud oo barnaamijka igala qayb galayay isla markaana ah mudane hore oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ila falanqeynayay qaybaha dambe barnaamijka aynu soo gaarnay qodobada dhanka dibadda ayaan jeclaan lahaa mid iyo laba inaan ka taabto waxaan ku horumarayaa doorashadii dhanka Kenya studio waxa igula sugan Xasan Sheekh Axmed Cabdi Xasan marka hore doorashadii Kenya iyo meesha ay marayso aad baad u mahadsan tahay Cabdicasiis Riyali doorashada waddanka Kenya oo ayada hore loo qontay inay dhacdo 26 bishan October kadib markii 8 bishii August doorashadii dhacday maxkamadda sare ee waddankaasi Kenya ay baabi'isay ayaa waxaa tan laftirkeeda soo baxaya qalalaaso iyo rabshado badan oo hareeyay waxaana jirtay in dhowr gobol oo ka tirsan waddanka Kenya aan laga codeynin waxaa haddaba uu ku baaqay Raila Odinga oo isagu ah hogaamiyaha mucaaradka ay ka soo horjeeda Uhuru Kenyatta in doorashadana ay tahay mid aan sax ahayn isla markaana ay ceeb ku tahay waddankaasi Kenya in la qabto waxa uu sheegay Raila Odinga in loo baahan yahay in muddo 90 cisho gudahood ah lagu qabto doorasho kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee waddanka Kenya waxa uu sheegay in wali meelo badan aysan waxba ka soo gaarin waxaana ugu baaqay in guddiyadii kala duwanaa in ay soo gudbiyaan foomamka doorashooyinka si markaasi loo tiriyo way ka duwan tahay qaabkii doorashadii 8 August loo tiriyay oo tan waxaa la doonayaa in aan la gudbin ilaa guddiga doorashadu ay mid u arkaan waxa kaloo aan eedeyn u jeediyay Raila Odinga madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya William Ruto waxaana uu yiri madaxweyne hogaamiyaha mucaaradka waxa uu diiday in doorashadu ay socoto isla markaana guddiga doorashooyinka iyo muwaadiniintii kala duwanaa ee ka qayb gali lahaa doorashada ayuu hor istaagay
waxaa lagu soo warramayaa cabdicasiisow 49 ruux in ay ku dhinteen tan iyo 8 Agosto ee sanadkan markii doorashada lagu dhawaaqay in dib loogu celiyo waxaa ka mid ahaa dadka la dilay dad markaasi fallaaro lagu dilay oo maanta ugu dambeysay nin ayaa waxaa lagu dilay fallaar waxay taas muujinaysaa in meelo badan la gubay dhibaatooyin badan inay soo baxayaan marka doorashadan waxaa la leeyahay su-aal kama taagna inuu Uhuru Kenyatta ku guuleysanayo waayo hogaamiyihii mucaaradka ee la tartami lahaa isagu meesha waa uu ka baxay hase ahaatee weli waxaa la arki doonaa guddiga doorashada sida uu natiijada ugu dhawaaqo iyo haddii madaxweynaha waddanka Kenya uu la sheego waa guuleystay habka ay uga dhaqan geli doonto waddanka Kenya meelaha qaar waxaa leeyahay dad mas'uuliyiin ayaa ka cararay gudaha dalka Kenya oo ka baqay arrimaha ammaanka ku dhowda guddiga doorashada 2 xubnood oo ka tirsan ayaa horey waxay u sheegeen doorashadani in aysan cadaalad ahayn waxay kaloo tilmaameen in ay naftooda u baqeen waxaana ka mid ahaa xubin sare oo ka tirsanaa guddiga doorashooyinka oo iyadu tagtay waddanka Kenya magaalada New York isla markaana sheegtay in aysan ku laaban karin waddanka baqdin darteed haddaan ka gudubno arrimaha Kenya bal ka waran arrimaha kala dhanka wadamada Carabta qodobka kale ugu muhiimsan waxa weeyaan wadamada khaliijka dhibaatooyin badan ayaa ka taagnaa oo waad la socotaa Qatar Saudi Arabia Masar iyo Imaaraadka Carabta inay aad isu khilaafsanayeen oo cunaqabateyn ay kusoo rogeen waddankaasi Qatar haddaba waxaa hadda shir ka dhacaya shir yeelanaya baarlamaanada wadamada Carabta waxaana dawladda Kuwait oo qaadatay mowqifka dhexdhexaadnimada ay doonaysaa in ay ajendayaal u gudbiso baarlamaanka wadamada Carabta oo ay ka dalbanayso in sidaan aan lagu sii jiri karin isla markaana loo baahan yahay in la hormariyo xagga ammaanka xagga dhaqaalaha ganacsiga wax walba in la kobciyo taa laakiin ay ka horeyso marka hore in la sameeyo hab nabadgelyo in laga dhex abuuro wadamada khaliijka baarlamaanada wadamada Carabta waxaa shirkooda shir gudoomin doona macnaha gudoomiyaha baarlamaanada Carabta maanta ayaa la filayaa inuu furmo waana la arki doonaa wixii ka soo baxa dawladda Soomaaliya waxay kamid tahay wadamada dhexdhexaadka ka noqday isla markaana waxay ku jirtaa baarlamaanka jaamacadda Carab ay ku jirtaa ma doorkeeda ka waran wadamada Carabta waxaa noogu jira xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxaan aanan ogeyn in ay ka qayb galayaan kulankaasi ka dhacaya meel kamid ah wadamada Carabta ilaa hadda si toos ah looma shaacin marka haddii laakiin 4 xubnood ama 2 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay kamid yihiin baarlamaanada wadamada Carabta marka kulanka baarlamaanada Carabta markay isugu imaanayaan waxaa la isugu yeeraa baarlamaan walba 4 xubnood ama 2 xubnood ama 3 xubnood ayaa laga soo xulaa kadib ayay shiraan kadib ay go'aano qaataan aad oo maasan tahay Xasan Sheekh Axmed Cadde oo qaybaha dambe la falanqeynaya ayuu ahaa guud ahaan barnaamijkii maanta iyo Somali Cable inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka xildhibaan Hiloole ayaa igala qayb galay iyo waliba Xasan Cadde waxaa idin soo saaray idin la socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Cabdullaahi Riyali dhanka kaamirada iyo waliba isku dubaridka farsamada barnaamijku wuxuu ahaa Cabdiraxiin Xuseen Ceelaawe waa bahdii Somali Cable Muqdisho idin leh nabadgelyo